aniga magacayga waxaa la dhahaa Liibaan Garaad Cali waxaa ku dhashay degmada Dharkeenley Madiina Dabakaay Madow magaalada Kismaayaan ku waxbartay dugsi hoose dhexe sare jaamacadda Kismaayaan ka qaatay shahaadada kulliyadda waxbarashada waxaan ka mid ahaa macallimiinta magaalada Kismaayo kadib waxaan noqday aasaasaha iyo maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee Mustaqbal Ustaad Liibaan Garaad Waka midnimada aniga kaliya ahmiyad gaar ah ma sameynayso waa nolol qof walba Soomaaliyeed uu u baahan yahay dalkeenu marka uu midoobo waxa badanaya fursadaha qof walba uu ku heli karo cadaaladda qof walba uu ku heli karo nolosha caafimaadka iyo waxbarashada asaageena waxa naga reebay waa tafaraaruq waay dadku inay midoobaan waxyaabo badan oo nolosha maanta caqabada ah ayaa fududaanaya sidoo kale dadku markay midoobaan waxay xisaabsanayaan dhulkooda mid ka maqan iyo kan joogaba cadaaladda iyo sinaantana waa aasaaska nolosha waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoomadeediiyow aniga nafteyda waxaan ka xarimay dulmiga sidoo kale adinkana hays dulminina marka cadaalad la helo waxaa dadku u helayaan xorriyadda qowlka xorriyadda ficilka iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa waxyaabaha markay u dhiirigeliyo in dadkeenu ay helaan cadaalad iyo midnimo waa jaceylka dalka u qabo iyo wanaagga aan la jeclahay dalkayga way aragnimada aniga kaliya ma qof walba Soomaaliya uu haystaa waxaana tusaale ugu ah dalkeenu qaabku u yaala maanta masiir baa u dhimanaysa marka dalalka dariska la nahay markaad aragto nin yani wadan kale u dhashay oo wadan kale lagu dhibaateeyay dawladii oo dhan ay qeylinayso anagu dadkayga maalin walba qaraxyo ay ku dhamaanayaan anaga dhaxdeena islaanayno isfaquuqayno aqoon-yahanadii iridaha laga xiranayo gabdhiinii kinay TikTokeriska iyo madaxtooyadii iyo madaxweynihii la shaacabayaan dadkii dalka aan ficil lahaana muxuu ahaa iridaha lagu xiraayo waxay soo xasuusisaa gabaygii carabiga imaam Shaafici ee uu dhahayay tamuutu al-usuud fi al-ghaabati juucan wa lahmu ad-da'ni ta'kuluhu al-kilaabu wa qad yanaamu 'abdun 'ala hariirin wa dhu 'aalimin mafarishuhu at-turaabu ana qof aqoon lana dalka inuu ku dayacmo mid jaahil ana xariir uu ku seexdo waxa sabab u ah qabyaaladda marka way aragnimo kaliya ma aha anagoo dhan bayna haysataa oo macnaha dhibaatana haysataa waana cudurka ugu weyn ee dalkeena ragaadiyay qabyaaladda wallahi waxaan u maleynayaa baydhaba aniga dadka qaar hadda markaan u sheego ma irmaystaan meeshan qofna kama aqoon dad reer baydhaba oo magaalada ka baxsan laakiin magaalada gudaheeda qofna kama aqoon nin baa haweenkii soo wacay magaaladana imaanaya yiri magaaladan hadda waxaan u joogaa nin waliis isku noolaa dadkeeduna way wanaagsan yihiin meelo kale hadda laga yeerayaa oo leeyahay halkan kugu jirtaa bal ka waran hadaan qabyaaladiista ahaan lahaa ama niman hadda maanta baraha bulshada ku aragtay oo kale ahaan lahaa miyay jiri lahayd cid soo dhaweysa ama cid xasuusata waxaan aaminsanahay Soomaalinimada waa baasaboorka ugu qurux badan marka laga soo reebo diinta Islaamka oo dhamaanteen in midaysa farxad bay isisay magaalada markaa imaanay iyo Muqdisho markaa imaanay waxaa jirtay dhaqaale yar oo aan aawatay oo ku soo talagalay oo aan dhahay isku celcel labadaas bil maanta inteedii laba jibaarkeedii aan haystaa meelo badanna hadda casuumada iyaale marka waxaan u maleynayaa inaan ku kasbaday Soomaalinimada welina wuxuu ahaa markii horena yoolkayga ma ahayn dhaqaale ku hel jacayl gaar ku hel waxaan u maleynayaa waajibaad isaaran sidaas aan hadda aaminsanahay maanta soo kuuba muuqato wax badan oo isbedel ah markaad aragto TikTok ama baraha bulshada calanka Soomaaliya sanadihii hore qiimo ma lahayn cidna ma xusi jirin maantana ardaydii hadda waxaan daawanayay muuqaal afridoodka ardayda class 8 ilmaha dhabarka wax u saarna calanka Soomaaliya waxa qadka markaa iskuul walba calankii kor wadaa waa at least albaabkii iridiyaan taagan hadda way riixayaan dhalinyarta iridii riixayaan hadday mar iridaa jabtana muxuu ahaa maanta qabiilka Laangaabu iska noqday wax calaamada qabiilka wada malaha wax xusaaya iyo wax isugu yeeranaya malaha meeshii ugu qurux badneed Soomaali maanta taaganta Soomaali waa laba qaarna waa siyaasiyiin qaarna waa shacab anuu shacabkan ka hadlaya shacabka hadda soo socda ee caruurta ah 10 sano ka bacdi ayaga noqonaya siyaasiyiin iska daa kuwa anaga waxa u sheegnay kuweena wax u sheegin ee caadiga iska ahaa baa maanta calankii laga kari laayay rajo fiican la yaaniga
والله محو هذه هرت الدنيا إلهي بقى عنتي سكوها أسرع الرجاء كن فيكون بوديه كرا دلال aan la dhehaynin maanta way soo kabanayaan ba caalamka maanta horumarka gaaraya oo jeeda in hal mar buu Ilaahay nala roogi karaa xumaantan uu wanaag nagu bedeli karaa annaga waxaan laga rabaa kali laba arin mid koowaad inaan quusanin talabaadna inaan isdhiganin waan dadaaleyna ma quusanin insha Allah ani rajo badan leeyahay hadayna ku sheedna ku soo celina dalkan uu hagaagay dadkiisuna way midowaan insha Allah wallahi horta macalinku waa halgamaa askariga dalka wuxuu ka difaacaa cadowga macalinkana wuxuu ka difaacaa dalka cadowga askariga wuxuu ka difaacaa cadowga oo shakhsiga ah macalinkana wuxuu difaacaa cadowga oo jahliga ah sida daraadeeda aniga waxaan aaminsanahay macalinku waa laf dhabar waana aas-aaska bulshada waay caruurtuna waa memory wixii lagu shubiyay xifdiyaan macalinka wuxuu ardada ku shubo haday tahay wadaniyad iyo daljacayl una kala diray qabyaalada qiyaas gobol walba imisa arday oo wadaniyiin ka soo bixi kara madaxweynaha qaranka arday u ahaa madaxweynaha muxuu ahaa maamul goboleedka arday u ahaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha arday u ahaa hadii markaa macallimiintoodii ay ku soo shubeen daljacayl iyo qulubtoodii ay soo dhiseen in badan maanta wax badan ay hagaajin lahaayeen marka waxaan aaminsanahay macalinka waa taleefankii ardaygana waa memory waxa ardayga lagu shubaa bulshada lagu daayaa anigu waxaan aaminsanahay maanta macallimiinta Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay soo saaraan jiil wadaniyiin ah kuwaasoo u taagan difaaca dalkooda horumarka dalkooda iyo inay la diriraan qabyaalada balanaa la leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo aan mar dhow la kulmi rabo marka hadda Muqdisho ku laabto talaadina baxarjina wasaaradana waa la kulmay qodobka ugu horeeyo kala kulmi rabo aan kala hadli rabo qodobkaas waay in la soo saaro maado wadaniyada ah oo intaasoo dhibca adag lagu bixiya ardayga ku baasa waliba shuruud adag laga dhisa maadadan in ardaygu ugu yaraan uu ka keeni karo 90% iyadana maada la weyneeyay ay noqoto insha Allah horta dhalinyarada badankooda ma aha qabyaaleystayaal kuwa sududka loo xiray dawladaha xilsiya siyaasiyiinta u abuura cadow mal awaala been dadka waxay ka dhaadhiciyaan in halkan cadow uu jiro ayagana ay difaacayaan waxay adeegsadaan dhalinyaro ayaga koreer ah suudada u xiraan ayaga ku shaqeeyaan markuu ka soo dago xilka siyaasigaas ninka hadana wadani noqdaa kii kale oo mucaarada markuu xilka qabto in yar oo macna aan lahayn baa qabyaalada ka shaqeysa wa amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard inta yar xumbada hareeraha ku qalli doonta inta wanaagsanna salka ku har doonta insha Allah horta niyow isdaba maraa jira dad wajunuud ibliis niman la dhaha naga daba shaqeeya wada marka waalidkii wanaagii iyo wacyigelinta aad gelinayso nin kale daawanayaan oo qabyaalad iyo reebel ku haya macna aan laakiin waxaan ku hayaa oo hadayna ku sheegay waxyaabaha qayaaliga ah iyo waxyaabaha maala yacniga oo dhan ma daahan ma raagaan isku ku meel gaar waay maanta waxyaabo badan oo sanadii hore goob joog u ahayd waa loo dhiski aawe qabliyaashii ayaga maanta dawladda raadinaya dawladda iyaga kaaga horay maanta ma garat marka waalidiintu waanu gaarsiinayna wacdida waxa lagu gaarsiinayaa media maanta qof walba teleefankiisu haystaa dadka wadanka kala qaybiyay Soomaaliya markaan caanka ayaan dhigin nimanka caanka ah ama gabdhaha caanka ah qof walba waxa xaabada ku shitaa ninkan wuxuu aaminsan imaamaha Sayid Maxamed Cabdullaahi wuxuu yiri dixriga quranku ma orowo quutaaye dhalinyaradan caanka xaabada ay ku shitaan qabyaalada يعني waxay aaminsan yihiin haduuna qabiil ka hadlin inuu soo quud helin marka waxaan qurun lama ureyso dalkiisa uu duminaya dadkiisa isku leynaya halkaas uu quudkiisa ka helaya marka fircoon jaarkiisa buu noqon siyaasiyiintana de soo xilka ugu raago qabiilkiisu wuxuu ku dhahaa magaaladan anaa idin haaya cadow baan ugu soo duulay oo reebel hadii magaaladan laga saaro adinkana waa la gumaysan waa ina magaalada difaacataan asaga dhuuqay dhaqaalaha waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah reebel kuulay waa cadowgiin qaar ka tirsanaa dawladda isku jira madaxweynayaal iyo wasiiro ah dadkina wuxuu ku leeyahay reebel iska dhiciya dadkii marka shacabkii dhufeysay ku jiraan dhaxanta ku leys askarigii dhinta lama daaweeyo askarigii dhinta muxuu ahaa ilmihiisa lama daryeelo kii dhaawaca lama daaweeyo muxuu ahaa hadduu dhintana waa ay ka dhinto kala waay asaga cuna dhaqaalaha nimankan oo qurba joogta ku soo haray
nimanka qurba joogta waxay aaminsan yihiin sida keliya dhaqaale dalka looga sameyn karo in bulshada la kiciyo maanta waxaan malaynayaa wax qabadka ugu weyn siyaasiga Soomaaliyeed waa suud iyo heesaa ilka cas suud u xiran ee laboor buu tagay fiideo laga duubay libaax soo rogaal celi waa loo saaray wuxuu u socdaa dal kale uu soo tuugsan rabaa ama daawo u socdaa wadankiisu daawo ka waay dhaawac yar wadankiisa in lagu dhayo kalsooni kuma qaba reerkiisii fiideoyaa loo qaybiyey isteedku u saaran yahay laan dheeraha aanan dhicin oo u qoran waa ninkaas ninka maanta waa waxyaabaha la isku faana xafladaha kamid ah qurba joog kasto midku ka xaflad badan yahay uu ka wax qad badan yahay marka anigu waxaa aaminsan dadkaas waa laga xiisa dhici doonaa waxyaabo ka daran waa laga xiisa dhacay ayagana muxuu hadda maanta u fiirso dadka qabyaaladistayaasha ah oo baraha bulshada ku jiray waa sii dabar go'ayaan aad bay u sii dabar go'ayaan inta dambana insha Allah daadka qaadi waxay u adeegsan karaan sida anagu u adeegsanayno kale iyo sida adinka asameynaysiin wanaaga ah in dhalinyarada wadaniyiinta la wareesto in ciwaanadoodii muxuu ahaa ay ku baahiyaan in iskuuladii ay booqdaan in suuqyadii ay booqdaan maanta ma jiro joornaal wadan ka soo baxo wadaniyada ka sheekeeya dhalinyarada maanta bis un baa TikTok daawata odayaashan hadda arkayso kale xalay inay telefoon isticmaalayeen oo ay dib ku arkaan marka odayaashu waxay ka dambeeyaan noloshii hore in joornaal la soo saaro oo dalka wacyigelin ah joornaalku uu raagaya guriba guri isku bedelaa in sida baraha bulshada loogu dhiirigeliyo kale in journalist la sameeyo idaacada wadaniyada bes ka sheekaysa in la abuuro oo dadku ay idaacada kaliya ka dhageystaan wadaniyada wax qusayo kaliya sidaas waa lagu gaari karaa dardaarankayga anigu waa mid joogta oo mar walba la arko inna maca al-usri yusran caqabad kasta waxaa ka dambaysa muxuu ahaa fudeed baa ka dambeeya dalal burbursanaya maanta hormaray wax qabadka wax waqti u baahan ma aha niyajabka iyo quusashadana dee qofka gaalka quusada innahu laa yay'asu min ruuxillaahi illa alqawmul kaafiruun dadka gaalada oo kaliya ayaa ka quusada ilaahay naxariistiisa dhalinyarada waxaan leeyahay quusanina dalkiina jeclaada wadaniyada muxuu ahaa ku taagnaada adinku un ka dheeraada qabiilka iyo qabyaaladdeeda insaameenin dhalinyarada qaaraa quusanayaan tusaale maanta oo kale aniga bini aadan ah caqabado qabiila la kulmay haddana haddaa inta meel soo fadhiista aan dhowraa meel walba qabiila ka jirtay inuu qabiilkaa u laabo maanta aniga baydhabaa imaade meesha hooyaday ku dhalatay ma aadin meesha aabbaye ku dhashay maana aadin meesha awowgey ku dhashay maana aadin meesha ayeeday ku dhalatay maana aadin soo socday baydhabaa imaade kalsooni iyo isku haleen Soomaalinimo ay hayse maantana waa aan arkay anigu hadda 6 bari jooga iga haysa inaan baydhabo waliga ka tagin hal maalin waxa dhibsado oo aan nacakumaan arkin marka isku haleen Soomaalinimo ugu jirto dhalinyarada waxaa leeyahay yeesha isku haleen Soomaalinimo imaada baydhabo imaada muqdisho imaada kismaayo imaada hargeysa aniga boqolkiiba boqol 99 ma niyadeydu waxay ii sheegaysaa maraan dheereen dhalinyaradan oo duufaan camal socotan arka doon insha Allah